Putin oo hadda ka mid noqday dadka ugu caansan dunida sida lagu shaaciyay ra'yi urin uu sameeyay xafiiska looga arrimiyo Ruushka ee Kremlinka waxaa la ogaaday in sumcadda madaxweyne Vladimir Putin ay sare u kacday oo ay gaartay heer aan horey loo arag 20 sano ee la soo dhaafay. Ra'yi ururinta koowaad ayaa waxa lagu ogaaday in 78% dadka Ruushku ay hadda aaminsan yihiin madaxweynahooda inuu hayo shaqo wanaagsan marka loo barbardhigo wixii ka horreeyay bishii February ee sanadkan xilligaas oo uu bilowday dagaalka Ukraine. sidoo kale sahanka ra'yi ururinta lagu sameeyay ayaa la ogaaday iyadoo dhaqaalaha dalka Ruushku uu wajahayo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin cunaqabataynta reer galbeedka ka imaanaya haddana 60% dadka Ruushka waxay kalsooni buuxda ku qabaan dhibanaha uu ku socdo waddanka oo ay ku tilmaameen meeshii ugu sarreysay tan iyo sanadkii 2005. ra'yi ururinta saddexaad ee la sameeyay ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in 72% dadka Ruushku ay taageersan yihiin duulaanka Ukraine. Ruushka ayaa aaminsan duulaanka uu ku qaaday Ukraine inuu yahay mid sax ah iyadoo warbaahinta maxalliga ah ay baahinayaan dagaalka una mamnuucay Kremlinka wax kasta oo dhaliil ah oo loo jeedinayo askarta dagaalka ku jirta. warbaahinta taageersan dawladda ayaa bilihii la soo dhaafay baahinaya fariimo ku saabsan dagaalka iyadoo uu socdo dhaqaale loo ururinayo askarta ku sugan jidda hore ee dagaalka. dhinaca kale qiimeyn uu sameeyay maxadka cilmi baadhiseed ee laga leeyahay dalka Mareykanka waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inay sumcadiisu gaartay heerkii ugu 20 sano ee la soo dhaafay waxaana taas sabab looga dhigay uu ku qaaday dalka ay iska yihiin Ukraine. qiimeynta oo lagu sameeyay 18 wadan oo laga wareystay in ka badan 23,000 oo qof oo qaangaar ah kuwaas oo la wareystay intii u dhaxaysay bilihii February iyo May waxaana inta badan wareysyada la qaaday kadib duulaankii Ruushka ay ka soo bilowday 24 bishii February. si kastaba 90% dadka lagu wareysay saanka ayaa sheegay inaysan kalsooni buuxda ku qabin Putin isla markaasna uusan wadin wax sax ah oo ka mid ah arrimaha adduunka. maxadka cilmi baadhiseed ee Mareykanka ayaa xusay in 20 sano ee la soo dhaafay qiimeynta caalamiga ah ee Putin ay hoos u dhacday dalal badan. wadamada uu maxadka saankii ugu dambeeyay ka sameeyay ayaa kala ah Mareykanka, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Holland, Poland, Spain, Sweden, UK, Israel, Japan, Malaysia, Singapore iyo South Korea. hoos u dhaca ku yimid qiimeynta caalamka uu ku sameeyay Mr. Putin ayaa ku soo beegantay xilli uu duulaan ka ballaaran ku qaaday dalka Ukraine kaasoo hadda socda in ka badan 4 bilood ayna ku dhinteen dad badan halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalka ayaa sidoo kale sababay walaac ku saabsan qiimaha raashinka iyo nabadgelyada caalamka oo dhan.